الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون إذا لهان داوديال meel kasta aad nagala socotaan amintu waxay tilmaamaysaa awalkan idin soo tabin jirnay war wixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalida ay degtay iyo waliba daafaha caalamka intiisa kale oo aad si toos ah uga dheehanaysaan xarunta guud ee muqbaahiyaha iftiin uu ku leeyahay magaalada Hargeysa haddii Allah wada loo ogolaado waxa warka diyaar u ah in idin soo tabiso anigoo ahani Maxamed Shafeec intaan ku guda jirno warkeena habeenimo qodobada ugu doorka roolnaad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhanbaal tacsiyo u diray Allah u naxariistay Cornel Xuseen Cabdi Dubed Alifdoon villa Soomaaliya oo xaqiijisay in Fahad Yaasiin lagu xanibay garoonka diyaaradaha dalka Djibouti madaxweynayaasha dowlad goboleedka dalka Soomaaliya oo khadka telefoonka ku wada xiriiray ayaa qoraal ka soo saaray khilaafka dalkaasi Soomaaliya hooyo la dhibaataysan wiilkeeda oo qaba xanuunka dhimirka warbixinayaan idinka haynaa madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu doorka roole imikii haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhanbaal tacsiyo u diray Allah u naxariistay Cornel Xuseen Cabdi Dubed Alifdoon sida faahfaahinta warkaasi inoogu eegi doono waryaheena Subeer Maxamed Maxamuud Subeer Galeyd tacsi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda ka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsiyo u diraya gudida darajooyinka ciidamada Soomaaliland waxgaradka waayeelka aqoon-yahanada qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxay Allah u naxariistay marxuum Cornel Xuseen Cabdi Dubed oo ku naanisna Alifdoon oo ku geeriyooday saakooyna taariikhdu ahay 17 bisha 9 2021 caasimadda Soomaaliland Hargeysa madaxweynuhu waxa marxuumka ku sifeeyay halgamaa ka baxay dalka iyo dadka door muhiim ah oo ka soo qaatay dib u dhiska iyo nabadeynta shacabka Soomaaliland waqtigana uu kamid ahaa gudida darajooyinka ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo marxuumku kamid ahaan jiray saraakiisha ciidamada badda dawladii burburtay la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu madaxweynuhu marxuumka alle uga bariyay inuu naxariista janno ka waraabiyo waxgaradkii waayeelka aqoon-yahanada qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxayna uu alle samiriye iimaan u ka siiyo Subeer Maxamed Maxamuud Subeer Galeyd wararka iftiin Somali TV Hargeysa villa Soomaaliya oo xaqiijisay in Fahad Yaasiin lagu xanibay garoonka diyaaradaha dalka Djibouti sida faahfaahinta warkaasi inoogu eegi doono waryaheena Liibaan Khadar Maxamed Liibaan Channel dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka xuntahay falka xadgudubka kuwa xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucaha caalamiga ah ee dowladda Djibouti ee garoonka diyaaradaha Djibouti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo saraakiisha Soomaaliyeed ee u helisa waxaan u sheegayaa dowladda Djibouti in mas'uuliyiintaasi u fududeyso safarkooda sidoo kale mas'uul buuxda ka tahay wixii dhibaato ka soo gaadha amnigooda dhinaca shakhsiga ah annagoo ka xun faragelintan qaawan ee xadgudubka ku ah labada dowladeed iyo labada shacab ee walaalaha ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin wuxuu ka qayb galayaa shirka amniga qaranka ee bari oo taariikhdu tahay 18 bisha Sebtembar 2021 lagu qaban doono magaalada Muqdisho Liibaan Khadar Maxamed Liibaan Channel wararka telefishinka caalamiga iftiin TV madaxweynayaasha dowlad goboleedka dowladda federaalka Soomaaliya oo khadka telefoonka ku wada xiriiray ayaa qoraal ka soo saaray khilaafka dalkaasi ka taagan sida faahfaahinta warkaasi inoogu eegi doono waryaheena Cabdilaahi Yuusuf Cabdilaahi Duulaaye maalinba maalinta ka dambeysa waxa cirkiis ku sii shareeriyay khilaafka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo uu kamid yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi kulan ay khadka telefoonka ku yeesheen madaxda maamul goboleedada Soomaaliya oo ay kaga arrinsanayeen xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya ayaa waxay ka soo saareen 10 qodob kuwaas oo ku dhexdhexaadinayaan khilaafka ba'an ee soo kala dhexgalay xubnaha ugu sarsareeya xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada la soo saaray waxa kamid ahaa in dhammaan khilaafaadka lagu xaliyo
tubta wadahadalka loona joojin qoraaladii fogaan halista ee khilaafka sidoo kalena in la tixgeliyo dhaqanka dastuurka kumeel gaadhka ah. 2 in la ixtiraamo la dhaqan geliyo heshiisyadii hore u galeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha 17 Diseembar 2020 ilaa 2021 lana sii xoojiyo wada shaqayntii golaha lagu egeeyay dhexdhexaadinta madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya in xaaladda baaritaan ee sarkaalada Dikraan Tahliil Faarax loo maro xanaan qaanuunka dalka iyadoo loo madax banaaninayo hay'adaha wada shaqaynta leh in madaxweynayaashu ay ku baaqaan in gudida farsamo ee hirgelinta doorasho labaad waajibaadkooda ku duntaan waafaqsan habraaca dastuurka loo ansixiyay. Madaxweynayaashu waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqeen in la wada qayb qaato xasiloonida in dalka ka dhacdo doorasho hufan oo nabad iyo xasilooni ku dhacda. Madaxweynayaashu waxay beesha caalamka ka codsadeen in dejiyaan taageerada farsamo dhaqaale hirgelin ee doorasho. Ugu dambeyn, madaxweynayaasha dowladda xubnaha ka dowlad federaalada waxay shir isugu imanayaan magaalada Garowe 22 ilaa 23 Diseembar 2021 lagana arisanayo dardalgelinta qabsoomida doorashada guud ee dalka Soomaaliya. Cabdullaahi Cabdi, Duulaye, Telefishinka Caalamiga Iftiin. hooyo la dhibaataysan wiilkeeda oo qaba xanuunka dhimirka sida warbixinta warkaasi uu markale inoogu eegi doono wariyaheena Cabdullaahi Yuusuf Cabdi Duulaye. Waa suuragal inaad caafimaad qabto, waana suuragal inaad haysato ammaan xasilooni deegnaa. Waa suuragal inaad leedahay laxaadkaaga iyo caafimaadkaaga oo dhammaystiran. haddana marmarka qaar aad dareemayso in noloshu kugu adag tahay. Caasho Cumar waa hooyo 2 wiil dhashay, mid ka mid wuxuu ku dhintay dagaaladii Arsenal, mid ka soo harayna wuxuu ku xidhay guriga ay ka degantay magaalada oo wuxuu ka xanuunsanayaa maskaxda. iyada lafteedu waxay ku socotaa labada roog, ma haysato daryeel caafimaad mid joogto ah iyo mid xukuumadeed. Saaka ayaa telefishinka caalamiga Iftiin ku booqday guriga ay ka degantay magaalada. Saada Cabdullaahi oo ah dadka ugu dhow ee jaarkeeda ayaa nooga warbixisay xaaladeeda caafimaad waxna hadaladeedii ka mid ahaa. Assalaamu calaykum, soo dhawaad telefishinka Iftiin. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ahay Caasho Cumar jaarkeeda. Caashadaas aad iyo aad bay u dhibaataysan tahay. 2 inan bay adduunyada ka eeganaysay in SNFT buu ku dhintay, inna kaasoo aad iyo aad buu xanuunsanayaa, miciin male isaga oo miciina maxay hayday markii hore u ahaa imagana wuu xanuunsaday, aad iyo aad buu dhiban yahay. iyaduna waxay qabsan kartaa iyo waxay qaraysan kartaa ma jirto. sanad markay joogtaa maalin aqalka laga maydhaa, hadday bugto iyo hadday badqataba halkaas ay ku jirtaa. aad iyo aad bay adoonta iyo adoonkaasi u dhibaataysan yihiin. dadweynaha iyo dawladda waxaan ka codsanaa cidii wuxuu qaban kartaa inay u qabato. imisa sano saaxayna jaar hayday inta imagaanu jaar ahayn 17 sano aan jaar lahaa. 17 sano kiyo aan ka xanuunsanayna saa tahay ayaan soo degaano halka. dadna aad iyo aad bay walahi dhibaato u qabtaa. marka inta badan yaa caawiya maadaama inkeedii kale waa salaam ku dhintay inankeedana kala xanuunsanay. waxa caawiya wixii jaarka ah amba wax ehelo marmar ay maxay hayday hablowda waaweyn iska wada xanuunsanaya iyaguna iska tabcaano iyada la daa jaarka iyo ehelka wixii marmar Ilaahay uga soo tuuro way ku nool yihiin. laakiin iyad maanta waxa qabsan karto waxa qarsan kartaa toona ma jirto, wax meel ugu maqan ma jirto, waxa mad soo tuurta mooyaan. maxaa xukuumadda maadaama jaarka tahay maxaa xukuumadda baa ku diras? waxaan baa ku diraya aad iyo aad inay soo caawinayo dawladda aad iyo aad u mahadsan dadka dhibaataysan. markaad sidaa u eegto waa nolol aan farxad ka muuqan. eebna wuxuu yiri isku naxariistaan diin naxariistee. Caasho Cumar iyo inankeeda nool ee maskaxda ka xanuunsanaya waxay rabaan in loo gargaaro, loo kaco, la taakuleeyo, isla markaana la garab istaago. Cabdullaahi Yuusuf Cabdi Duulaye, Telefishinka Caalamiga Iftiin, Hargeysa. madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laftigreen ayaa ugu horeyn ka hadlay dhexdhexaadinta ay ka dhexwadeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Farmaajo. waxa uu sheegay inay weli ku rajo weyn yihiin in wax kasta lagu dhameeyo wada hadal iyo isfahan. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xusay in khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul ee dalka u sareeya uu dib u dhac u keeni karo dalka iyo doorashadii la filayay inay Soomaaliya ka dhacdo. waxa uu sheegay in si looga hortago in dalku galo xaalad hubanti la'aan ah ay sii wadi doonaan dhexdhexaadintii ay ka dhexwadeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Roble.
hadalka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku soo aadayay xilli uu xoogeystay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble isla markaana ay soo saareen qoraal iska soo horjeeda. madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku sheegay inuu awood dhimis ku sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu hore ugu wareejiyay qabashada doorashada iyo qorsheynta amniga. halka ra'iisul wasaare Roble uu qoraalkaasi ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka isla markaana uusan u hoggaansami doonin. hani maxamed shafeec, wararka iftiin Somali TV. wararka daawadayaal laga soo gaaray dalka dibadiisana waxaa ka mid ah madaxa golaha sare ee siyaasadda xuutiyiinta ayaa amray in sawirada laga saaro dhammaan hay'adaha. mahdi al-mashaad oo madax u ah golaha sare ee siyaasadda xuutiyiinta ayaa amray in laga saaro sawirada dhammaan xafiisyada dowladda iyo kuwa hay'adaha iyo in lagu bedelo xadiiskii nebiga ee ahaa iimaanku waa Yemen xikmaduna waa Yemen. isbahaysiga carabta ayaa ku dhawaaqay inay fashiliyeen weerar dhanka cirka ah oo ay xuutiyiintu ku soo qaadeen garoonka Abha. wakaaladda wararka ee Saba ee xuutiyiinta taabacsan ayaa soo xigatay al-Mashaad oo leh aayadaha Qur'aanka iyo axaadiisyada waxaa loo qaabayn doonaa hal model waana la ansixin doonaa waxaana la soo dejin doonaa dhammaan sawirada si ay dadkeena ugu xidhnaadaan Ilaahay. goor dambe ayaa la daabacay 2 sawir oo aayadaha Qur'aanka ah iyo axaadiiska nebiga kuwaas oo hogaamiyaha xuutiyiinta uu amray in la sudho halkii sawirada hay'adaha iyo kuwa dowladda laga qaaday. hani Suleymaan, wararka iftiin TV. waa tahay daawadayaal qodobkaasi waxa uu gun gabagabeeyo gunaanad u ahaa war waxaan idinka haynay deegaanada Soomaalida ay degtay iyo waliba daafaha caalamka intiisa kale oo aad si toos ah uga dheehanayseen xarunta guud ee muuqbahayaha iftiin uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxa warkeedii la socodsiinaysay anigoo hani maxamed shafeec. intaan ku kulmi doono warka kani xiga waxaan dhamaantahay idinkaga taginaa sidaas iyo nabadgelyo.